ma waxaad i mooday kuwa jirkooda ka ganacsada ayay tiri. bal eeg oo fiiri waxa dhacay. wiil ayaa wuxuu soo galay maqaaxid, markaasuu arkay gabar keligeed oo meel gooni ah iska fadhida. wuu kasoo dhawaaday, wuxuu ku dhahay ma kula fadhiisani karaa. inta qaylisay cod dheer, weliba dadka ay maqashinaysa waxay ku tiri, waan kula seexani, maxaad ka wadaa? yaadse i mooday, ma waxaad ii malaysay kuwa jirkooda ka ganacsada. inta yaxyaxay oo xishooday ayuu kursi bannaan oo halkaas ah ayuu iska fadhiistay. wax yar kadib ayay u timid, waxay ku tiri, waxaan bartay cilmu nafsi, falsafad. waxaan fiirinaya oo eegayay bal qaabka oga fadcelini ama waxaad sameynay markii lagu dulmiyo. wuu istaagay, cod dheer oo dadka uu maqashiinayo wuxuu ku dhahay, $300 hal haween ma bixini karo, macquul ma aha. dadkii dhan ayaa soo wada eegay. waaba ayadoo kursigeeda kasoo kacday oo wiilkii u tagtay, markaasay dhahan war waaba run wuxuu sheegaye. kursigeeda ka timid, asaga u tagtay, haddana lacag ay kasii rabtaa. ayadina way naxday, way cabsatay, way xishootay, way yayaxday. intuu usoo dhawaaday, dhegta afka u saaray wuxuu ku yidhaahday, iga raalli noqo, waxaan bartay qaanuun, maadada la yirahdo qaanuun. qareen baan ahay, waxaan garanay sida xaqa loo soo dhacsado, ee xaqiga usoo dhacsado ayaan garanay, ee iga raalli ahaw. daawade, bal adiga maxay kula tahay qisadaasi? qofkii sidaa kugu sameeyana maxaad ka yeeli lahayd ama maxaad ku sameyni lahayd?